السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا قاعد عدنان إسماعيل حرسي. إن شاء الله برنامج كيني وحالي راها ليبن إن دوشلاند دراسة شرملكا قيبتي دي شنات إن شاء الله أيان مانتا كهالدينا مانتا أرنتو حق سيسا ودورشة طبعا وقتين دولدها الديمقراطية دورشة أي سمستان waxaa la yidhahaa qof kasta waxaa lagu doortaa barnaamijka uu wato iyo systemka uu wato marka maadaama ay doorasho ay jirto waxyaaba ayaa ka mamnuuca aan la ogolayn iyo waxyaaba oo qofku xaq u leeyahay baa jirta طبعا waa la ogahay Afrika oo kale مثلا hadduu qof soo sharaxayo oo adiga ogeydeen مثلا doorashooyinkii ka dhacay مثلا Soomaaliya oo kale waxa weeyaan markuu qof doorasho ay jirto waxaa la yidhahaa dad buu casuumayaa dad buu lacag siinayaa sidoo codadkooda u qaato waxaa la yidhaahaa yani si kastaba wuxuu yeelayaa oo maal iyo cunto iyo wax kastaba u gashanayaa si uu waxaa la yidhahaa cod u helo laakiin jarmalka arrintaas ma jirto qofkii waxaa ku dooranaysaa waa barnaamijkiisa markuu shacabku waaci yahay uu shacabku waxaa la yidhahaa maskax uu furan yahay dabcan wuxuu dooranayaa qofkii wax tarayay isagoo ana lacagta amba waxaa la yidhaahaa cuntada amba waxaa la yidhaahaa in adeerkay isagoo waxaasoo dhan ay eegeen waxay eeganayaan uun waa qofka wax taraya waxa kale oo jira in uu aanan ogolayn in qofku hadduu codeeyo amba codkiisa uu siinayo inaana la oran amba dhibaato loo geysan oo codkiisa xor yahay qofku doonaya intuu siiyo طبعا انكو نقولها مثلا انكو الصومالي وكلام هي ورنا هذا كاسي بالورنيا وقبيل كيني وجيل كيني لكن جرب كو حسن كشقيسو waxa weeyaan qof kasta xor buu yahay qofku dooranayo mala daqad garan karo wax dhibaato loo geysan karo mala lagu qasan karo qof coday amba qof waxa la yiraahdaa samee xataa baritool haday doorashada ay dhacdo ma aha inuu مثلا madaxweynaha amba waxa la yiraahdaa xisibka marka ku guuleystay inuu dad macayana uu daqad gareeyo uu qiraha wallahi way codeen weedeen waxasan xuquuqdiina nisin waay waxa weeyaan waa ra'ay xurbu qofku yahay inuu waxa la yiraahdaa codeeyo qofku doonaya inuu codkiisa u siiyo isagoo aana waxa la yiraahdaa dhibaato loo geysan waxa kale oo jira مثلا naka Afrika kale مثلا hadduu qofku jariimad sameeyay amba qof jeelka ka soo baxay مثلا tuham baa la siiyaayo waxa la yiraahdaa war ninkan qeyr mas'uul weeyaan sidoo cod bixin karaayo laakiin jarmalka qofku xataa duu jeel ku jiro xaq u leeyahay inuu waxa la yiraahdaa codkiisa u bixiyo waxa kale oo jira waxa la yiraahdaa ma aha daruuri dadkoo dhan intay codeeyaan ما هذا سكول أنت دقاقان يراهم ما توعدين قف دوني توعدي حرب وياي قف أنا دوني تسكن حرب وياي لكن الرير بإن شاء الله كدريا ترملك وحى عضية بدنك وحوي عندك باسبور كهيستا وين وجنسية هيستا دتك ساعدين كرا لكن دتك أجنبي أم بدتك وحالي راها حوتي مكسوبي هاي oo dayagu wali may baasaboorka may qaadan dadka wali cod ma laha codka waxa helaysaa insha Allah oo codeyn kartaa waa marka baasaboorka heshay marka insha Allah waa inta weeyaan doorashada ayaan maanta ka hadlaynaa intaas ay ahayd marka insha Allah soo dhawaada insha Allah su'aasha insha Allah waxaa la yiraahdaa soo dhawaada su'aashii insha Allah waatan su'aashu waxa weeyaan Wahlen in Deutschland sind frei. Was bedeutet das? معناheedu waxa weeyaan doorashada Jarmalka waa xor amba waxa lagu tilmaamaa waxa yaani hadan siira faahfaahiyo doorasho xor ah marka macnaheedu waxay tahay waxa la yiraahdaa waxayna siiyay afar jawaabood A iyo B iyo C iyo D eed waxa weeyaan man darf gilt annehmen wenn man davor einen bestimmten Kandidaten eine bestimmte Kandidaten wählt macnaheedu waxa weeyaan in loo ogol yahay qofka in lacag laga qaato qofka soo sharaxaya
amba qof kasta oo dee waxaa la yidhaahaa doonaya inuu waxaa la yidhahaa soo sharaxo in aan lacag laga qaato. waxaa la yidhahaa beedu waxa weeyaan der Valer darf der Val wieder eine Verlust noch zu einer bestimmten Stammabgaben gezwungen werden und keine Nachteile durch die Wahl haben. macnaheedu waxa weeyaan qofka ma loo ogola inaa awood loo sheegto amba waxaa la yidhaahaa lagu qasbo waxaa la yidhahaa inuu doorashada kasoo qayb galo amba uu codkiisa uu dhiibo amba waxaa la yidhaahaa hadhowtole kabacdina waxaa la yidhahaa inaa dhibaato marka doorashada kabacdina dhibaato aan loo geysto. waxaa la yidhaahaa c ayaan imaka soo gaarnay. c waxa weeyaan nur personen die noch nie im Gefängnis waren dürfen wählen. macnaheedu waxa weeyaan dadka aanan loo ogolayn oo keliya waxa weeyaan dadka waxaa la yidhaahaa jeelka ku jira ma loo ogolo waxaa la yidhahaa codkooda ay dhiibtaan. waxaa la yidhaahaa deeduna waxa weeyaan alle Wahlberechtigten müssen wählen. macnaheedu waxa weeyaan kullu amba waxaa la yidhaahaa dadkoo dhan xaq waxay u leeyihiin inay waxaa la yidhaahaa ay doorashada kasoo qayb galaan, weliba waa qasab intay kasoo qayb galaan. marka waxaa la yidhaahaa saxdu waxa weeyaan waa beeda casaanka ay waxaa la yidhaahaa ay ku taalo warqada a arkaysiin. waxa weeyaan der Wahlen darf der Wahl wieder eine Verlust waxaa la yidhaha noch zu einer bestimmten Stammabgaben gezwungen werden und keine Nachteile durch die Wahl haben. taas ayaa waxaa la yidhahaa jawaabta saxa ah oo ah in aana qofka waxaa la yidhaahaa aan lagu qasbi karayn waxaa la yidhahaa doorashada, oo waxaa la yidhaahaa in aana dhibaataha dhutolada loo geysaneyn, oo in aana qof codka aana xoog laga qaadan. waa intaa waxaa la yidhaahaa jawaabta insha allah waa inoo iyo waxaa la yidhaahaa mar kale.